soo dhawow waa idin soo dhaweynaa waa dagaaladii caadiga iska ahaa waayo qoladan khawaariijta markasta ay ku dhibaataynayeen dadka waaye wax ka duwan ma jiro marka cashar fiican waa loo dhigay oo waa ka sheekayn doonaan ciidankii diyaar asoo waxay u imaadeen kolley dhaawacoodii iyo dhimasho fara badanna waa laga qabtay magaalada Baydhabo ka daawan kartay miidkooda meelo daadsan yahay maxaa khasaaro oo gaarsiiseen tirada inta la egtay khasaarada la gaarsiiyay لا هذا هل أمير يو سدح طبعا أو ميت أو أمير كان ميت كيسي وكجرو يعني كهينا بيدوا أنا لقيه وضدك شعب كها قاضي أنت أي لا عرّين وهذا عن مغلينين وإلا يو وحيكونوا وين شان اللواتن أو ضاوع إذا مشي سوجرو صد عن مغلين وضدك ديجان كأنه سوشيء جايين أيجنا والله كنت بجرا هذا عيدنا كنت بجرا ورجينا هنا أيجنا الله سهل إن شاء الله. واي هاي مركز هذا ديجان كي لو دقالم يا قاعد كوايا. deegaanka dawladda gacanta ku haysa sideeda loo degay yahay sidii loo deganaa waaye marka waan la ogaa oo intay ka soo socdaan dadka shacabka ay soo dhaxmarayeen mar walba noo sheegayay oo dadkeeni ah waliba ayaga dadka shacabka ah dagaalka ka qayb qaatay oo deegaanka deganaa marka waa xalka boos waayahay waxa iga warantaa marka dhankiina maxaa khasaaro idin soo gaaray mar haddii kolley dagaal dhaco dhimasho dhaawacba way dhacaysaa inaga askara naga dhaawacantay waxa hadda ilaa hadda naga dhintay ma jiro marka askarna waa dhaawacmaysa dagaal haddii la galo waana diyaar ay u yihiin inay ku shahiidaan oo naftooda ku waayaan ciidankeeni qalabka sida qaybaylaysi kala duwan dadka shacabka reer Koonfur Galbeed diyaar ay u yihiin marka hadda howlgallada banaanka ka socda miyaa deegaanka hadda howlgallada socda qoladii meelahan soo weerartay iyo ciidanka ku daba jiraan deegaano kalena howlgallada way ka bilaabanayaan dhawaan insha Allah go'aankeena waxa waaye in shabaab laga waayo eeridan Koonfur Galbeed maadaama intaas dadkeeni ay dhibaataynayeen oo in la iska dhiciyo la go'aansaday taasan ayaan ku jirnaa insha Allah waayahay wasiir waxa rabinaa ku weydiiyo dhawaan waxa dib loo furay wadooyinkooda sanad muddo badan tilaabadaasi maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka dambeeyay maamulka Koonfur Galbeed markay ay xiraayeen lama tashan hadda oo la furayeen lama tashan awal horeba tuugo wada xiratay ahaayeen oo dadka shacabka reer Koonfur Galbeed dhibaataynay cunaqabateen saaray haddana sidoo kale waxa waaye markay dareemeen culeys iyo dadkii deegaankii inay ku kaceen oo ummadii ay intaas oo sana haysteen markay ogaadeen inay qoriyahooda qaateen ay maaragtay wadooyinka waa furnay ay iska dhaxeen laakiin wado furan ma jiro wali sideeday u xiran tahay waana la rajaynayaa dadka shacabka ah oo reer Koonfur Galbeed ayagii dawladooda inay wadooyinkooda furtaan oo ayaga isku tashtaan shabaab oo laga sugayo naxariistaas ma jirto howlgallada dhawaanka bilaabanaya gobolka Shabeellaha Hoose ka waran isagana insha Allah kan uu la mid yahay gobolka Shabeellaha Hoose kaliya ma aha Koonfur Galbeedna ka bilaaban doona gobolka Bakool gobolka Baay gobolka Shabeellaha Hoose intii reer Koonfur Galbeed ay degan yihiin waa la isku tashanayaa dadka reer Koonfur Galbeed